الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد dhammaan waan salaamayaa xaadiriinta wasiirada, safarada, madaxda, xildhibaanada wasiirada iyo dhammaan xaadiriinta rag iyo dumarba. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan is iri maxaad sheegtaa? mar waxay u soo dhacday maadaama ciwaanku yahay difaaca madax banaanida maarata soomaalida, waxaan is iri yaa laga difaacaya haddii ayagu soomaalidu dhexdooda ayagu ay maaragtay isjilaafaynayaan oo qaarkood ayagu dalkii ay xurmadii uu lahay ku tacdilayaan, xaggee la difaacayaa? yaas laga difaacaya? mar waxaan jeclaystay maadaama maxadkani uu maarata cilmi baaris uu yahay, in horta caadifadda meel la iska dhigo cilmi baarisa la aado oo durbaan garaaca iyo waxaa sibaab kale weeye. isha durbaan garaaca maaha, banaanbaxna maaha, cilmi baaris weeye. marka intaan ka aqaan aniga aan ka fahamsanahay waxaa weeye mirihii fashilkii dowladdeenna iyo qumbulooyinkii aan aasasanay ama aan aasnay intii aan dowladda ahayn wixii noo aasimhayey oo soomaalida dowladnimadooda halista ku ahaa oo maamulka xun iyo cadaalad la-aantu ay dhalaysay, mirihii ayaga ahaa iyo bubaanooyinkii aasnaa ayaa midba mar soo baxaysaa. marka waxaa la rabaa marka in dib loo noqo la rabaa oo waxaan qaladkan meeshuu ka yimid dib loo baaro oo si ayra loo saxo oo gacan lagu saxo wixii hore nooga khaldamay, gacan hadda wixii la qaban kara lagu qabtaa la rabaa. diinteedu waxay na baraysaa dadkii haddii aan si fiican loo maamulin oo dadku waxa runta ah iyo waxay mudan yihiin aysan helinin, dadku meelo kaley aadahayaan, waana aadeen. saraakiil soomaaliyeed oo canshuurta soomaaliyeed lagu tababaray, ku barteen, kusoo qalanjabiyeen, xidigo loogu xiray, ayaa cadowgii soomaaliyeed oo taqliidigii ahaa ayaa maciin biday 78kii 79kii ahayd ilaa hadday socotaa. marka inta qof soomaali usan qanacsanayn, inta qof soomaali aan kasban la'nahay, inta qof soomaali isfahmi la yihiin, difaacu horta dhexdeenna ha ahaado. wuxuu ka bilaabanayaa in dadka waxyaalaha dadka didiya oo dadka kala dila in horta la daaweeya loo baahan yahay. cumar radiallahu canhu amiirkii mu'miniinta, nin carabo iska miskiin uu ahaa, ma dhigan jaamacad, laakiin diinta fahamsiisay dadka haddii la xumeeyo inay meel xun aadahayaan. isagoo la hadlay dad madaxda, isagoo la hadlaya oo maamuladiisa ah ama gobortoorayaasha ahaa, ayuu wuxuu ku yidhi laa tadribu almuslimiina fatadulluuhum, muslimiinta ha dilinina oo ha garaacinina markaasay duloobahayaani. walaa tamnacuhum xuquuqahum, xuquuqda ay leeyihiin ha u diidinina, fatukafiruuhum markaasay gaalo u galahayaani. markaan ku dhac marka haddii annaga wixii aan isku lahayn aan diidayno, qofkii soomaaligaa 30 sano 40 sano wixii uu raadinay uu la'yahay, haddaan dib u noqonayno mayo oo aan sixitaan fog aan bilowno oo cadaaladda iyo waxa la kala tabar si fiican loo saxa loo baahan yahay. laakiin haddii difaac dibadda laga hadlo anagoo iskala iibinayna lafteena, iskala iibinayna oo anagu maxaan ku waraaha ismaaragtay wanjalaynaa ma noo soconayso.
hore baa loo yiri nin walaalkii geed igu jira geesi noqon waaye nin walaalkiis u gaban yahay oo walaalkiis uu meel ugu jiro maaragta asaga cad uu ku yahay hagee u socda marka horta walaalaheena ee dadkeena aan gurigeena horta gudihiisa aan saxanno aan istoosino waxaan naga khaldana insha allah tacaala aan dib ugu noqono wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu raallina halla aado haddii meel kalen aaday